السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaantood salaam fiidoo ku socda waalidka wadanka Jarmalka ku nool ubadkooda iskuulka tagaan saddex arin ayaad iska ilaalinaysaa haduu ubadkaaga iskuulka dhigo saddexda arin mid kamid ah hadii ay kugu dhacdo ama ilmahaaga lagu helo salaxan saddexda waxa kamid ah haddaan saddexdaydii bilaabo ko in ilmahaagu shul materialka oo qaar kamid ah soo hilmaamo sida buugaagta ama qalimaanta wixii adigu maalinta xiisada looga baahay hadii ubadka ilmahaagu markasta uu soo hilmaamo mid kamid ah macallimiintu waxay sameeyaan la socdo way hoosta ka xariiqa ilmahaaga kiiskaagana yuugan amtiga ayaa loo gudbinayaa hadii dhowr jeer lagu arko adii 2-3 jeer talabaad in ilmahaagu suu shibad markasta iskuulka aad geyso 7 ilaa 7 barka xiisaduhu sida iskuulka sida caadiga ardaydu tagaan markii ardaydu yar yihiin baan ka hadlaya marka hadii aad qabqab Soomaalidu inaan garanay inta qabqab leenahay waxa laga yaabaa inaad markasta 5 daqiiqo soo shibad noqoto ogow waxaasi adiga marka cid wax koornaysa male laakiin waxaan inay noot kugu socdo laga hoostaga xariiqayo in ilmi hebel markasta soo shibad yimaado yuugan amtiga toos loo gudbina qaybta waliba shul aan yuugan lishka qaabilsan qodobka saddexaad oo muhiimka ilmahaaga ee Soomaalida ee dilna nabar ay ugu leeyahay salahan ilma kala qaniino ilma ka garaacno sidoo ku ogaanaya marka iskuulka in ilmahan la dilay waxa lagu ogaanaya iskuulka marna qaar waxa jira xiisadaha la baxsho ah in sport leeyahay ama inuu leeyahay swim oo ilmaha dalka iska bixishaan dabaasha dabeetana markasta ilmaha Islaandarka badan ay gooni lagu arko in nabar leeyahay ilmuhu dooshka aan lahayn taasina aad bay yani halis ugu tahay waxay sameynayaan iyagu dadka iskuulka adiga waxa kuma weydiinaya toos qaybta yuugan amtiga shul aan yuugan lishka la ilaa ay badan la xiriiraan dabeetana ayaa ku yar loo gudbinaya marka adiga iyo ilmahaaga yuugan amtiga tooshbeeda ku haynayaan waxa laga yaabaa in adiga ballan lagu soo rido inta lagu degdegan lagu wareysto dabeetana lagu digo haddana ilmahii saddexdii mid kamid ah ay mar kale soo noqoto mar kale lagu digo marka saddexaad waxa laga yaabaa hadii uu qofkaasi saq abeedkaasi uu xun yahay inuu adiga talaabo ka qaado adiga ilmihii halkaas ku heedaan Soomaaliya ka taxadira fadlan wad ka taxadira ilmuhu haduu yani weynaado dilka badan ka daayo iskuul uu tago wax kasta ay dhici karaa talabaad hadii uu astraada maanta iskuulku ka habsaamay fadlan iskuulka la hadla bishaad u sheegay in ilmaan waxay si jiraan cudurdaar dabadeetana oo imanaya ama waxaan adigu waadahan xanuunsanta ama wax kale jiraan dabeetana sidaa darteed maanta wax yar ee soo habsaamay markasta gaaladan ama wadankan degan waxa laga dambeeyo wax la dhaaf bishaad markasta hadii aslaad habsaamay bishaadkaas shul materialkana fadlan markasta ilaaliya control shandadaha ciyaalka mararka qaar waxba lagu soo ridaa mararka qaar waxa laga yaabaa in buugu iskuulka yimaaday in guriga wax ku kulmaan fadlan waxiisu markasta complete u ahaado walaalayaal ilaahay naga nabadgeliyo qolooyinka qaybta ciyaalka qaabilsan aan ku digtoonaano markasta ku feejigno ubadkaaga hooyo aaba labadaba mas'uuliyad baa ka saaran qaasatan hooyooyinka ubadka haya fadlan u gudbi fiidiyogan hadad garanayso